hogaamiye wadamada Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya ayaa qaaday tallaabo naadir oo aan maalmaha laga filaynin. Waa dhacdada la xiriirtay inay diideen la hadalka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden kadib isagoo oo doonaya taageero laga siiyo dagaalka Ruushka iyo Ukraine garabkeeda in la noqdo waxaana laga qabto shidaalka sii qaaliyoobaya ee dunida. laakiin labada nin ee Mohammed bin Sayed iyo Mohammed bin Salman waa ay diideen la hadalka Joe Biden sida uu tabiyay wargeyska The Wall Street Journal ee Mareykanka laga leeyahay. maamulka aqalka cad ee Mareykanku waxa ay dadaal xoog la geliyeen inay helaan si wada hadal telefoon ay u yeeshaan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman iyo dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Sayed, laakiin labada arrinba waa lagu guul daraystay. wargeysku waxa uu sheegay in salaasadii toddobaadkan dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya iyo Abu Dhabi ay diideen inay aqbalaan warka uga yimid xagga Mareykanka. Mareykanku waxa uu ku jiraa dadaal uu doonayo inuu ururiyo taageero xooggan oo ka hor timaada dagaalka Ruushka ee Ukraine iyo in la isku kaashado xakamaynta dhibaatada kor u kaca saliidda ee dagaalku sababi karo. laakiin labada hogaamiye ee Sacuudiga iyo Imaaraadka oo Joe Biden doonayo inuu arrintan kala hadlo ayaa shardi kaga dhigay in ka hor ay ka wada hadlaan waxa ka socda Yemen iyo siyaasadooda ku wajahan wadamadaas. Sacuudigu wuxuu horey u diiday dalab uu kaga doonayay Mareykanka inuu gacan ka geysto dejinta qiimaha shidaalka. waxa uu shardi ka dhigay in marka hore Mareykanku ballan qaado inuu taageero buuxda ka siinayo dagaalka Yemen iyo inuu ka caawinayo samaysashada nuclear nabad ah iyo in dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman la siiyo xasaanad ka hor istaagi karta in lagu soo ogo dacwado la xiriira dilkii saxafiga Jamal Khashoggi ee sanadkii 2018. wajigabixi Biden uu kala kulmay labadan dal ee Khaliijka kadib waxa uu la xiriiray madaxweynayaasha Ruushka iyo Ukraine si uu isku dayo in colaadda xal loo helo. shidaalka culus ee warshadaha waxa uu qiimihiisu si aad kor ugu kacay intii u dhaxaysay tan iyo bilowgii dagaalkan Ukraine ilaa iyo waqtigan. The Wall Street waxa ay sheegtay in madaxweynaha Mareykanku uu dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya uga digay inuu siyaasadeeyo wax soo saarka shidaalka, taas oo ahayd fariin uu ugu sheegay in shidaalka aanu qiimihiisa jabin ama wax soo saarkiisa u kordhin si uu u kabo hoos u dhac ka dhalan kara shidaal yari loo soo saarta arrinta Ruushka. si weyn ayaa arrinta saxaafaddu ay u hadal haysaa bariga dhaxana waxa ay u tahay warka ugu weyn in Mohammed bin Salman oo Sacuudi ah iyo Mohammed bin Sayed ay diidaan war uga yimid aqalka cad ee Mareykanka. sida muuqata isbeddello waaweyn oo dunida ayaa soo wajahan. Mareykankuna filan waa siyaasadeed ayay ku noqotay tallaabada labadan hogaamiyaba ay ku diideen inay ku aqbalaan warka Mareykanka. maalin ka hor sargaal sare oo ka tirsan boqortooyada Sacuudi Carabiya waxa uu sheegay in Mohammed bin Salman uu la kulmay kooxaha wax soo saarka warshadaha saliidda ee dalkiisa uuna u sheegay haba yaraatee in litir dheeraada aan lagu kordhin karin wixii hore loo soo saari jiray ee shidaal ah, taas oo ahayd dabcan wada hadal isaga iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin hore u dhex maray kuna aadanaa in aan marnaba xoogga la saarin. saacado ka hor ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa si adag isaga diiday in Mareykanka iyo reer galbeedku ay ku cadaadiyaan inuu cambaareeyo duulaanka Ukraine ee Ruushka, waxaana uu sheegay inay yihiin dalal madax bannaan oo leh siyaasadooda arrimaha dibadda hadba jihada ay u jaangooyaan. Mareykanka hadda waxa uu la kulmayaa dhabarjab weyn oo diblomaasiyadda caalamiga ah iyo inuu xal u helo qiimaha sii kordhaya ee shidaalka dunida oo si waali cirka ugu socda. madrasada Darul Istiqama oo uga barateen barashada Quraanka Kariimka ah kana qalin jabisay dafcadii 10aad waxay hadda idin soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo uga baran karto Quraanka adigoo jooga gurigaaga meel kasto aad joogto waad noqon kartaa ardayda Darul Istiqama. wixii faahfaahintaas dheeriya kala xiriir lambarada iyo gmailada shaashada ku qoran. Darul Istiqama daarta cilmi.